السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مركلي جنال كعبدي جنال الله إنك وجسوا قد بنا وحيالها إنسانها هاي وحي أنفعيا ومدة الصوماليات ما أنت وحن إذين وذا سؤال بدنا يا يسوي ديسن أو عاد الذين حدان تجو دمرنو يسوي دير اللي يسوي ديسي أو لها يسا وح شقة أو لقى بلا بكارو مترتا مصر وأنا العقب بدن كوبحين marka waxaan sameeyay baaritaan baan sameeyay waxaan idiin soo bandhigayaa 5 business oo baaritaan aan ku sameeyay walibana mid ma garanaysaa caalami ah oo xoog badan aan raadiyay kaliya aragtideeda kaliya ma ahan yani waa maxay waxa training sameynaya hadeertaan wadanka Masar waa maxay baahiyada ugu badan oo jirta sababtoo Soomaali badan kuma noola wadanka marka waa ina target kaagu uu noqdaa bulshada Masriyiinta oo dhan haday ahaan lahaayeen kuwa wadanka u dhashay haday ahaan lahaayeen kuwa dhowrka milyan oo timaada sanad walba iyo haday ahaan lahaayeen Soomaalidaba marka waxyaalaha soo dhan fiirinaya ayaan waxaan ku soo koobay 5 business oo aan lacag qaarna kaaga baxayn qaarna lacag ay kaaga baxayso aad wax yaro gacan qabsi aad u baahan tahay inaan maanta idin soo dhigo tan koowaad waxa waaye dalka Masar sida wadamada soo koreeyo dhan ay ka jirtaba waxay aad u isticmaalaan telefoonada dadka marka dhaqaalahooda xoogaa kor u kaco waxa qofku hadda qof walba wuxuu haystaa smartphone buu haystaa smartphone kana cilado badan buu leeyahay ama baahiyo badan buu leeyahay qofka telefoonku markuu soo galo waxa lagu xareereeyay baahiyo badan ma garatay ma soo gadanaysid telefoon waxa u baahan tahay marka telefoon soo gadato waxyaalo badan oo la xiriira sida la aligeed ka ganacsiga telefoonada iyo waxyaalaha la xiriira waa aad bay macnaha u soconayaan dalka Masar hadeertaan yani telefoon kan yar oo aad ku gado qalabka telefoonada hadaad telefoonada gadaysidna waa meeshoodii hadaad lacagta haynin aad telefoonkii ku gadana waxyaalaha ku hareeraysan sida keysaska kale chargerka kale dhalada dusha laga saaro kale phone holderka gacanta halkaan oo kale lagu dhajiyo gacanta saas lagu qabto adiga gadgetskaasi telefoonka ku hareeraysan lacag badan kaaga bixi mayso China laga keena qaarna dalkaaba lagu sameeyaa lacag yar baad ku bilaabi kartaa kiosk yar meel yarna waad furan kartaa oo ma garanaysaa aan weynayn soo bilaabideedu aad bay ma garanaysaa ay u fududahay waana business soconaya oo qofka uu ku bilaabi karo alaaba Soomaalidu waxay sameeyaan markay yimaadaan maqaaxi sambuus ama bariis lagu gado iyo midkii baatiga iyo catarada iyo lagu gadaayay bahalkii unbay bilaabaan iga raali noqda qof baa halkaan wuxuu ka bilaabay dube markii aan maanta dhan meeshan joogay markaan researchiga sameynayay xaaladdu way kala deganayd laakiin videogi markaan bilaabay ayay bilaabatay mudaharaad meeshan ay ka wadaan waxaan idin ka codsanayaa inaad YouTube-ka aad subscribe saartaan hadaad ku cusub tahay hadaad hore u joogtay aad baad u mahadsan tahay like saar comment bixi shaarkayga ka waran sabar baa jira qorax baa ay hayso ujeeda shaarkan guduudka sidee ku ahay hoos comment-iga igu sheeg qurxoon miya soo iska soo bedela next time intaana waa kaftan talabaad waxa waaye sida idiin sheegay bulshada hadda Soomaaliyana way ka jirtaa bulshadu markii wadcigoodu maskaxiyan uu koro dhaqaalahooduna uu karo baahiyo badan oo awal ay lahaan jirin ayay yeeshaan baahiyahaas waxa kamid ah waxay caafimaadkooda ka fakaraan ma fahamtay marka Kenyada ma aqaan Masarna arinkaasi waxa kaga duwana wadamada kale marka waxaad sameyn kartaa waxa aad loo danaynayaa dadku ay u danaynayaan cunto caafimaad leh walibana arinka wuxuu ku socdaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo aan ogahay cunto fiican inay kariyaan inkastoo cuntadeeda ayna fiicnayn hadii cuntada ay wax kaaga bilaaban tahay oo kale waxaad cunto caafimaad leh ayaad waxaad ku sameyn kartaa gurigaaga
kadibna waxaad iska register garaynaysaa abka la yiraahdo waa tii labaad waay shaqadii labaad waay abka la yiraahdo talabaad baad iska register garaynaysaa kadib gurigaaga cuntada ku prepare garaynaysaa ku diyaarinaysaa dadkii cuntadii bay soo dalbanayaan cuntada baa kamid ah caafimaadka leh sida saladada oo kale cuntada caafimaadka leh iyo cabitaanada caafimaadka leh oo ma garanaysaa cabitaano la shiido oo waxaa jira dadku markay detoxin ay rabaan inay jirkooda ka saaraan waxyaalaha xun research baad samaynaysaa yani cabitaano waxa youtube-kay ku jirtaa cabitaanada waxay yihiin iyo waxa laga sameeyo so cabitaanadaasaad samaynaysaa cuntadaasaad samaynaysaa talabaad baad waxaad ka samaysanaysaa isheeg account kadib sawiraad ka qaadaysaa moota ku imaanaysaa cuntadii qofkii bay kaaga qaadaysaa effort badan u baahna yurmaca waa laga sameeyaa arrimahaas way jirtaa qofku wuxuu gelayaa talabaadkiisu gelayaa cunto wuxuu healthy abuu raadinayaa kadibna adaa meeshii usoo fuulaya advertisementna waad samayn kartaa sida instagramka iyo bahalkii lacag yar baa bixinaysaa oo local celebritiska aad inta xiriir la samayso baad waxaad ku samaynaysaa cuntadaadii halkaa ka xayeysiinaysaa laakiin haddii aad talabaadkaas geliso waxaan aaminsanahay inaad u baahnayn inaad wax kala samayso tan labaad waaye midda saddexaad shaqada saddexaad oo aad samayn karto oo xoogaa tan dhalinyarada iyo waxaasay anfacaysaa iyo qof ma garanaysaa energy badan haysta in yaroo qarashana haya tan saddexaad waxaa weeyaan in aad dib u gado qalabka guryaha yani waxaad samaynaysaa waxaad gadanaysaa kenya waa lagu sameeyaa dhalinyaro samaysa waan aqaanaa waxaad samaynaysaa waxaad gadanaysaa dadka guurigeeda waxaad ka gadanaysaa waxyaalaha guryaha sida sariiraha iyo fadhiga iyo isheeg bahasha cuntada lagu karsado iyo frinjeerka iyo waxaas baad gadanaysaa kadib dib ayaad u gadaysaa oo ma garanaysaa haddii ay farsamo yar ay wax ka jabsan yihiin wixii baad ku daraysaa waa shaqo fudud oo ma garanaysaa aad wax iskugu dabamari karto waad soo gadanaysaa waad sii gadanaysaa xoogaa waxaad u baahan tahay space laakiin waxaad ku bilaabi kartaa hal guri alaabtiis 2 guri alaabtood meel baad garinaysaa saasaad ku gadaysaa haddii lagu bartana waa bes weeyaan marka taasna waa tan saddexaad shaqada saddexaad oo aad ka bilaabi karto dalka Egypt qaasatan magaalada Cairo tan saddexaad waxa weeyaan inaad noqoto real estate agent waxa la yiraahdo oo Soomaalidu waxay u taqaanaa dulaal qofku markuu maqlo magac negative uu wax ka fahmaya qof ordayo bashaaradiisan oo bahalka weeye laakiin caalamka real estate brokerska waa dadka ugu lacagta badan nolosha ugu quruxda badan ku nool ma fahantay guriye intay macnaha gadaan ay waxay helayaan percentage guri million inta galo wuxuu helayaa inuu 10% uu leeyahay taa macnaheedu waxa weeye 100,000 inuu ka helayo hal guri uu gaday Masar marka waxa ka jirta fursadaas ka jirta Soomaali badan baa timaada guriye u baahan yihiin dad badan oo Soomaali ah raba guriyahooda in loo kireeyo ama loo gado dad badan waxay rabaan guriye inay gadaan xafiis baad lacag yar ku furaysaa $100 $80 wax saasa magaalada Qaahira qaasatan xaafadda Madiinada Nasr oo kale raqiis way xafiisyada in yar oo furniture aad dhigaysaa real estate agent baad ku qoraysaa adaa guriga tagaya soo arkaya informationkiisa soo qaadanaya kadibna waa lagu imaanaya waa la isku kaasheegaya adiga waa dareemi kartaa inaad tagto xafiis iyo ana adiga guriga arkay aad tiraahdo maanta cid tiraahdo guri ayaa arkay ma jirto way jirtaa arrimahaas dad sameeyaa way jiraan laakiin still gaab baa ka jira marka arrinkaasna waa arrin jira oo aad ku macnaha aad ka samaysan karto waa arrinka afraad arrinka shanaad oo aan ku soo gabagabeynayo shaqada businesska shanaad oo aan ku soo gabagabeynayo waxa waaye siiba haddaad qof dhalinyaro tahay markaad timaado dalka Masar haddaad jaamacad dhigato haddaad leen u joogto haddaad wax u joogto
waxaad investment adaa isku samaynaya waxaad baranaysaa magaalada qaahira waxaa yimaada 4 milyan 5 milyan sanad walba oo u yimaada inay booqdaan waxaad tegi kartaa meel walba oo ay taariikh leh sida pyramids kale of Giza museumka tegi kartaa Islamic Cairo tegi kartaa meelaha ma garanaysaa workshopyada lagu sameeyo street foodka meelaha caanka ka ah qaahira baad samayn kartaa magaalada dhexdeeda meelaha caanka oo kale tegi kartaa sida dhismayaasha taariikhdiga leh sida Tahrir Square oo kale Katifal meesha la yiraahdo kafeeyada caanka sida Zamalek Art and Cafe Tour Madi Architecture meel yiraahdo jirta nature walk meelaha waxaa jirta Masar aan loo qaahira markaa tagtid inay jirto meel degan oo beer ah inay jirto dad badan oo aan ogeyn baa jirta meelahaas oo dhan oo hidden gemka waxay dhahaan gaaladu waxaadan filayn yani oo qarsoon oo dadku meelo badan aysan arag exploration badan lagu samayn baad baranaysaa kadibna waxaad samaynaysaa tours cid kaa xigta ma jirto adiga dadnimadaada iyo digital marketing baad samaynaysaa Instagram iyo waxaad isticmaalaysaa iyo Facebook TikTok adaa tegaya waad soo duubaysaa TikTokaad soo dhigaysaa telefoonkaagaad ku qoraysaa waxaad leedahay I offer this tours ma fahantay marka kow adiga markaad timaado adiga inaad kala barato magaaladii markii wax meel walba wax laga weydiiyo aad tagto ma fahantay dhinaca kale waxaad wajihi kartaa Soomaalida markii la yimaado sida viisada loola soo baxo sida ciyaalka loo geeyo school caafimaadka dhaqtarada ugu fiican waxaasoo dhan baad xafidaysaa kadibna waxaad offer garanaysaa dadka way jirtaa laakiin wali way badanta way joogtaa yani fursadaas way bannaan tahay waxaa la yiraahdaa ideadu ma ahan business idea ma ahan adiga wax cusub inaad keentid waa wax jira inaad improve garaysid marka waad improve garanaysaa waa mahadsantiin kuleyl badan baa jirta waa dhididaya waa u jeedaan tan iyo intaan dib dambe u kulmayno waxaan isku ognahay janaalkan inaad 10 ku gaarsiisaan salaamu calaykum.